barnaamijka kobciye waa barnaamij tixano ah kana kooban 30 qaybood kuwaasi oo taabanaya nolosha qof kasta oo naga mid ah. Kobciye waa daqiiqado kooban oo kobcinaya naftaada ha u daymo la'aan. Waa diyaarintii iyo soo jeedintii al-ustaad coach Maxamed ibn Umar. bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. kusoo dhawaada barnaamijkeeni kobciye iyo 10 cinwaankiisu yahay hoggaan iyo maamul. hogaamiye miyaa tahay mise maamule? kee ayaa sakan kala ka fiican? muxuu yahay farqiga u dhaxeeya hogaamiyaha iyo maamulaha? hawl kastoo la qabanayo lana rabo in laga gaaro guul waxaa shaki la'aan ah in loo baahan yahay in loo helo dad isla markaana cayaarahadba dowrka suuro gelin kara gaaridda yoolka iyo ujeedada laga leeyahay hawshaas. dadka u qumaya wadida hawl ayaa waxa laga maarmaan ah in dowrka ay ku leeyihiin hawshaas uu cad yahay, kaasoo laba midood noqda inta badan hoggaan ama maamul. hoggaanka iyo maamulka midna midka kale kama fiicna. mid kasta meel uu ku haboon yahay iyo qaab loo adeegsado ayuu leeyahay. haddiina la dhigo mid kasta booska uu ku haboon yahay sida ugu fiican ayaa looga faa'iideysan karaa. tusaale ahaan, qofka ugu sarreeya shirkadda waxaa laga rabaa inuu 90% uu u dhaqmo sida qof hoggaan ah, halka 10% oo kaliya uu u dhaqmayo qaab maamule. waxaa isna ka duwan ninka qayb shirkadda ka mid ah sida qaybta suuqgeynta iyo iibka ay hoos timaado oo laga rabo in 50% uu qaab hogaamiye u dhaqmo, 50% kalena qaab maamule inuu u dhaqmo. halka shaqaalaha caadiga ah ee shirkadda 100% uu yahay doorkoodu dhaqan maamul oo uusan waxba ku lahayn hoggaan. waxyaabaha ay ku kala duwan yihiin iyo dhaqamada ay kala leeyihiin maamulka iyo hoggaanka waan u tagi doonaa insha Allah. cilmiga maamulka ayaa waxa uu leeyahay qaabab badan oo loo qeexo, mid kastaana dhinac ka mid ah howlaha maamulka ayuu xoogga saaraa. waxaase ka soo qaadanaynaa qeexidda maamulka uu ka bixiyay aqoonyahanka Mareykanka u dhashay ee lagu magacaabo Frederick Taylor. wuxuuna u qeexaa sidan: maamulku waa in si dhab ah loo yaqaano waxa dadka laga rabo inay sameeyaan, lana hubsado inay sidii la rabay u sameynayaan iyada oo uu baxayo qarash yar. cilmiga hoggaanka ayaa waxaa la sheegaa inuu leeyahay wax ka badan 200 oo qeexitaan. culimada cilmiga wax ka qortay aad ayay uga hadleen isuguna howleen in ay u qeexaan. waxaase ka soo qaadanaynaa dhageysto qeexitaan gaaban oo uu leeyahay Dr. Tariq Al-Suwaydaan oo cilmiga hoggaanka wax ka qora. waxa uuna ku qeexaa hoggaan inuu yahay awoodda iyo karidda u dhaqaajinta dadka xagga yoolka. hoggaamintu waxay u baahan tahay karid iyo karti iyo awood ma ahan anaa ka aqoon badan ama ka weyn, ma ahan anaa ka akhlaaq badan ama diin badan, walow intaas oo muhiim yihiin. karidda iyo awoodaha hoggaamintu u baahan tahay Allah ayaa bixiya una hibeeya dadka. ma waxaad rabtaa inaad dhahdo hoggaanku waa u dhalashee iska yeelyeel ama barasho toona maahan? hagaag dhageysto, arrintaas aad ayay uga doodaan culimada cilmiga hoggaanka wax ka qorta. waxaana jira aragtiyo sidaa dhahaya oo qaba in hoggaanka loo dhasho ee aan la iska keeni karin ama la baran karin qaabka wax loo hoggaamiyo. laakiin sida saxan ee gadaal laga ogaaday ayaa ah in dadka 100% ka mid ah ay u dhashaan hoggaannimada oo Allah hibo u siiyo, sida saxaabiga Umar ibn Aas iyo saxaabadii kale nabiga gadaashii muslimiinta hoggaanka u qabtay. Umar ibn Khattab ayaa arkay maalin Umar ibn Aas oo iska lugeynaya, markaasuu yiri ma habboona in Aba Abdullah oo ula jeedo Umar ibn Aas uu dhulka dul socdo asagoon hoggaamiye ahayn. wuxuuna tilmaamay Umar radiyallahu anhu in Umar ibn Aas uu yahay hoggaamiye u dhashay hoggaaminta. waxaa kaloo jira 100% dadka ka mid ah oo dadaal kasta oo lagu baxsho iyo si kastoo loogu tababaro hoggaaminta aan awoodin inay hoggaan noqdaan. laba qof ba xataa Allah ka dhigay aan cidna waxba u noqon karin, jagana aan qaban karin. sida saxaabiga weyn ee Abaadar oo nabiga inta uu yimid kana dalbaday in hoggaan laga dhigo meelna loo dhiibo, nabiga ku yiri Abaadarow kama bixi kartide laba xataa hoggaamin. dhageysto, ogow Abaadar waxa uu ka mid yahay saxaabadii ugu horeysay ee diinta soo gasha. waxa uu ka mid yahay saxaabada kuwooda ugu cilmiga badan oo cilmiga loogu tagi jiray
oo aadka u aqoonta badnaa. saxaabiga cali radiallahu canhu arrinkaa tilmaamaya ayaa yidhi abaadar waa weel cilmi uu ka buuxsamay oo afka laga xiray. nabiguna sala allahu calayhi wasalam wuxuu yidhi maa aqalat alkhabraa walaa adallat alkhadraa min rajulin asdaqa lahjatan min abi dar. dhulkana ma qaado cirkuna ma hareeyo ruux ka run badan abaadar. u fiir sida cali aqoonta iyo cilmiga ugu tilmaamay abaadar, rasuulkuna ugu ammaanay. haddana hogaamin kuma haboonid ayaa la yidhi. marka inaad aqoon badan tahay ama aad tahay caalim aada u taqwo badan kama dhalan karto mar kasta inaad ku haboon tahay hogaanka. 98% soo hartay dadka ka mid ana waxaa u soorowda inay bartaan hogaanka oo ay kasbadaan, iyadoo loo tababarayo siday wax u hogaamin lahaayeen. waxayna awood u leeyihiin inay helaan xirfadaha iyo tabaha hogaaneed kadib marka la baro loona diyaarsho hogaannimo. waxaa la soo wariyaa in hadda ka hor alimaam axmed ibnu xambal la weydiiyey nin aada u taqwo badan oo tabar daran iyo mid adag oo xoogan ee laakiin faajir ah keebaan hogaan ka dhiganaa. wuxuu ku jawaabay kan taqwada badani taqwadiisu asagay wax taraysaa, tabardaradiisuna muslimiinta ay waxyeelaanaysaa, halka kan xoogani ee faajirka ah awoodiisu muslimka ay wax tarayso, faajirnimadiisuna asaga ay u gaarka tahay. ee hogaanka yeesha kan xoogan ee faajirka ah. yacni ninkaas ayaa wuxuu lahaa karti hogaaneed. markaan hogaan magacaabayno maahan in loo eego soo horeynta oo aan dhahno ninkan baa meeshaan intaasoo sano joogay iyo ninkan baa weligii halkan ka shaqayn jiray iyo waxa la midka ah. ee waxaan eegaynaa lana fiirinayaa tabarta iyo kartida hogaaneed ee qofku leeyahay. sida nebiguba usaame hogaankii ciidanka muslimiinta ugu dhiibay ayadoo saxaabo waaweyn joogaan, camar ibna caasna u dhiibay hogaan asagoo 4 bil oo qura muslim ahaa, halka abaadar aan waxba loo dhiibin ayadoo lagu murmo ma qofkii afraad ee muslimaa mise waa kii 5aad. markii xilkaas loo dhiibayay camarna wuu joogay abaadar. dabcan haddii la helayo mid wanaagsan oo aqoon badan oo taqi ah, akhlaaqdiisuna sarrayso, islamarkaana leh awoodihii iyo kartidii hogaaneed, dabcan asagaan dooranaynaa. doodna kama taagna middaas, ee waxaa laga hadlayaa waa ku haboonida hogaanka qofku ku haboon yahay iyo la-aanteed, oo ah tan lagu kala reebayo dadka u taagan qabashada xil hogaaneed. hogaanku wuxuu noqdaa mid xun oo xumaanta ku hogaamiyay dadka raacsan adduunka iyo aakhiraba. allah ayaa qur-aankiisa ku sheegay markuu fircoon ka waramayay in fircoon dadkiisu raaceen asaga oo xumaan dunida ku hogaaminayay, ayuu haddana aakhiro iman doonaa isagoo haddana qoomkiisa u hogaamin doono maaragtay naarta xaggeeda. haddaba fircoon waa hogaamiye adduun iyo aakhiraba qoomkiisa horkici doono, sida ay tibaaxeen suuradaha huud iyo zuqruf. qaala tacaala fastakhafa qowmahu faadaacuuh innahum kaanuu qowman faasiqiin yaqdumu qowmahu yowma alqiyaamah faawradahum annaara wabi'sa alwirdu almawruud. waxaana uu hogaanku noqon karaa hogaan wanaagsan oo dadka wanaagga iyo khayrka iyo horumarka adduun iyo aakhiraba leh u horseeda. waxaana tusaalaha ugu weyn ee hogaanka noocaasi ah yahay nabigeenna maxamed sala allahu calayhi wasalam, oo laysku waafaqsan yahay shakina ku jirin inuusan dunida soo marin hogaan lamida. badanaa waxaa laysku qasaa oo isdhex gala hogaanka iyo maamulka oo ah 2 cilmi oo kala duwanaanshiyo u dhexeeyo. wuxuuna inta badan isku qaskaasi ka yimaadaa marka laga hadlayo howlaha ay kala leeyihiin hogaamiyaha iyo maamulaha. waqtiga barnaamijka oo inoo ogolaanayn darteed, haddii aan isku dayno inaan tilmaano kooban ka bixinno oo aan tilmaano kuwa ugu waaweyn ayaa waxay kala yihiin. arrinka koowaad ee maamuluhu xoogga saaraa waa fulinta howl maalmeedka maalin kasta la qabanayo. qodobka labaad ayaa ah dejinta qorshe dhow oo aan sanad ka badnayn inta badan, halka qodobka koowaad ee uga duwan yahay hogaanku maamulka uu yahay inuu xoogga saaro mustaqbalka oo aan ula jeedno dhisidda qorshaha fog ee 5 sano iyo wixii ka badan ah, iyo u fakarka sida halka lagu socdo iyo aragtida fog samaynteeda qaabku noqon lahaa. qodobka labaad ayaa wuxuu yahay inuu xoogga saaro hogaanku dadka oo aan ula jeedno inuu saameeyo dadka una dhaqaajiyo xagga fulinta ujeedooyinka waaweyn ee loo gol leeyahay xaqiijintooda
iyo inuu dhiso xiriiro wanaagsan oo kala dhexeeya dadka waxtarka leh ee ku caawin kara gaaridda ujeedooyinkiisa. hoggaanka iyo maamulkaba waa laba cilmi oo aad u ballaaran oo lagu koobi karin sadaro iyo oraahyo toona. waxaan jeclaysta dhageystow inaan ku dareensiiyo muhiimadda nolosheena ay u leeyihiin barashadooda iyo dhaqangelintoodaba. waxaa la isku waafaqsan yahay in waxa ugu muhiimsan ee dad kasta leeyahay uu yahay dadka, waxaana shaki ku jirin in dadka ugu qaalisan dadkana ay yihiin hoggaanadooda. waa haddii ay si fiican yihiin kuwa loo diyaariyey oo aqoon iyo akhlaaq la isugu daray. mar haddii dadka inta ugu muhiimsani yihiin hoggaanka, kuwa wax ka bedela bulshooyinkan ayaga yihiin, sidee lagu ogaan karaa dadka sida ku habboon hoggaannimada, isla markaana si loo soo xulo loona diyaariyo oo tababaro wanaagsan loo siiyo si aan u diyaarino hoggaano suuban oo wanaagsan ee samata bixiya dadka. dhageystow aad ayay u badan yihiin calaamadaha lagu garto qofka ku habboon hoggaan inuu noqdo. waxaanse kusoo koobaynaa calaamadaha soo socda oo haddaad aragtaan qof idinku ag dhow ama aad taqaanaan ku aragtaan aad garan kartaan inuu yahay qof ku habboon hoggaan. sidaa daraaddeed ka raadiya walaalihiin, caruurtiina, dadka shaqaalaha idinkaga, shirkadihiina, dadka kale aad istaqaanaanba. calaamadda koowaad waxay tahay inuu qofku leeyahay awood taxliilin ama falanqeyn ama waxa loo yaqaano analysis oo ay kasoo muuqanayso fahamka degdega ah iyo su-aalaha wanaagsan iyo sarreynta caqligiisa. calaamadda labaad ayaa ah dhiiranaanta iyo inuu cabsi la-aan wax soo bandhigayo, waxa uu qabana ka hadlayo, horena ka saxayo wixii qalad ah ee uu arkay oo uusan ka aamusaynin. calaamadda saddexaad ayaa iyadaan ahaan sarreynta. dadka raadiya meelaha sarsare oo aan marnaba meel hoose ku qancayn, una leh noloshooduna leedahay ujeedooyin sarsare oo ay tiigsanayaan, kuwaas oo ay dadka kale la yaabaan oo ay dhahaan ma ayadaa suurogeli doonta waxaan uu qofkan rabo. hoggaanku kuma koobna oo keliya midka siyaasadda iyo hoggaanka dowladeed iyo kan ciidan, ee qof kastaa majaalkiisa ayuu hoggaan ku yahay haddii laga helo kartidii iyo xirfadihii hoggaaneed. hoggaanku waxa uu galaa dhinac walboo nolosha ka mid ah. culimada aqoonta durugsan diinta u leh waa hoggaano diimeed. aqoon-yahanka dad badani ku saamoobeen fikirkiisa iyo aqoontiisa waa hoggaan aqoonta uu leeyahay dadka ku hoggaamiya. sidaa ayaa loo baahan yahay inaan u fahno. ha u malayn in hal nooc oo hoggaan ah inuu jiro ee qof kasta oo dad raacsani jiraan, islamarkaana saameyn dadka uga tagaa ama dadku ka faa'iidaystaan. waa hoggaan haddii uu leeyahay kartidii hoggaanka iyo xirfadihiisii. hoggaaminta dhabta ahi waa inaad dadka saameyn ku reebtaa ee maahan in lagugu xardho jagooyin kala duwan oo aad hesho naynaasyo ama lagu yidhaahdo madaxweyne iyo guddoomiye. mahadsanid. diiwaangeli wixii aad faa'iiday, isku day inaad dhaqan geliso, siina faafi.